runtii Soomaaliya korontadeedu qof kasta oo Soomaaliya uu ka dheragsan yahay waxay soo martay xilli ay dadku aysan koronto haysanin. waxaa la soo maray xilli korontadu ay xaafado yar marba loo tookeeyo. haddeer ovolka magaalooyinka waaweyn koronto way haystaan, laakiin korontada ay haystaan maaha koronto ay dadku ku qanacsan yihiin oo waa qaali. shirkadda Beekorta waxaa la sameeyey 2014 bishii shanaad. korontada xilligaas ee shirkadaha dadka ganacsatada inta caqligoodii iyo xoog muruqoodii iyo maalkoodaba intay isu keeneen ay shirkaddan Beeko samaynayeen korontada halkii kilowatt hour, in other words halkii unit waxaa la gedi jiray $20. iyadoo shidaalkii la isticmaalo baa korontii la soo jebiyey 79 senti baa la keena. mar labaad baa haddana la soo jebiyey 65 senti baa la keena. mar saddexaad baa la soo jebiyey 55 senti baa la keena. mar afraad baa la soo jebiyey 48 senti baa la keena. mar kale la sii jebiyey 36 senti baa la keena. hadalka haddaan odhanaya ha loo fiirsado. markii dagaalkii Ukraine dhacay yaa shidaalkii cirka hal mar aaday. labay mid noqota shirkaduhu in ay demiyaan korontada oo ay dadka u tookeeyaan iyo in wax yar oo faraguudkooda kor loo qaado. wax yar baa kor loo qaaday inkastoo haddana la soo celiyey. korontada Soomaaliya waxaa laga dhaliyaa diesel. adduunka cid korontada diesel ka dhalisaa ma jirto. haddaan dhinac yar idinka tuso maalinkii magaalada Muqdisho kaliya ka hadlay tusaaladaan magaalada Muqdisho idin siiyo halkii maalin waxaa la isticmaalaa shidaal ay lacagta soo dhigantay $350,000. haddii lacagtaas sanad ahaan loo bedelo waa taqriiban 30 milyan in a year. dieselka dhowr nooc looga guuri karaa. kow in la aado renewable energy-ga. renewable energy waa maxay? waa solarka iyo windka. windka Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya dabaysheedu commercial ma noqon karto. maxaan uga jeedaa? haddii la rabo windku inuu commercial noqdo waa inuu windka xawaaraheedu uu ahaado 8 mitir per second iyo wixii ka sarreeya. xaggee ugu sokayso wind oo commercial ka noqon kartaa Xarar Dheere iyo meesha la yidhaahdo Hobyo ilaa Nugaal Valley. marka la aado dhulka haddii wind la dhigi lahaa dalka oo dhan wuu ku fidnaan lahaa. okay, haddii la yidhaahdo solar keligii ha la aado, solarka Soomaaliya taqriiban koonfurta Soomaaliya xagaayo badan bay leedahay. adigu sanadkii marka la isku soo celceliyo 4.2 saacadood baa maalintii aad qoraxda fuul helaysaa. laakiin korontada waxaa loo raqiisin la'yahay in ay waxa laga soo saaraa aysan ahayn wixii saxda ahaa. marka caqabadda waxaa ka muhiimsan in solution la raadiyo. solutionka ay Soomaaliya u baahan tahay waxay tahay in aynu korontada waxa aynu ka dhalinno aynu ka guurno oo aynu u guurno wax ka fiican oo aynu ka bilowno natural gas aynu ka bilowno. dadka qaadka ganacsatada inta lacagta aruuriyaan baa Kenya loo diraa. exactly annaga waxaanu samaynaa wax la mida. waxa weeyaan meesha waxaa taala lacagta aanu aruurino ee aanu imaaraadka u dirno iyadoo dalka joogta baa korontada aynu heli karnaa haddii shacabkuna nala shaqeeyaan, dowladduna nala shaqeyso, ganacsataduna sida ay wax u wadaan insha allahu tacaala. waqti dhow waxaynu arkaynaa magaaladeenna iyo dalkeenna oo weji kale leh. mahadsantihiin.